wafdi oo hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Beendhabo oo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdilcasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa 30 cisho kadib gaaray magaalada Beendhabo iyadoo 19 Abriil 2022 safar ku soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si uu qayb galo doorashada madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo aad ugu dhawaa maamulka hadda talada ka sii degay ee uu hogaamiyo madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dadaalo badan ku baxshay sidii ay ku soo saari lahaayeen xildhibaano dib u soo doorto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Villa Soomaaliya ayaa ku guuldareysatay in ay dib u qabsato guddoonka golaha shacabka ka gadaal markii gudoomiyihii ay wateen looga adkaaday doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo labadiisa ku xogeen. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuu uu joogay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo kala duwan ula qaatay qaar kamid ah midowga musharaxiinta oo kamid ahaa madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wuxuu sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha xilka sii baneenaya Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. sidoo kale wuxuu kulan duceedyo kala duwan la qaatay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaako oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ismaaciil Ibro Xasan wararka muuqaal baahiyaha SBTV magaalada Muqdisho.